kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijyadeena qodobada aad daawan doontaan waxaa qayb ka ah TPLF oo bililiqaystay bangiga ganacsiga ee Itoobiya. Boobkii ugu xumaa ayaa loo geystay cabaadka kasoo yaraya ama xarada dhulkeeda oo la burburiyay. TPLF waxaa la leeyahay waxa ay sameynayso waa waxaan loo dulqaadan karin. Wararka ugu dambeeyay saaxiibayaal ayaan eegi doonaa arrintaas ayaanu saaxiibayaal gorfeen doonaa aragtidiina qaybta hoose noogu dhow barnaamijyadeena like soo sheegay aynu ku bilowno. kooxda TPLF waxaa lagu eedeeyay inay dhaceen oo ay boob u geysteen 238 xarumood oo uu bankiga ku lahaa goobihii ay qabsadeen. TPLF goobahaas oo dhan waxay ka qaadeen lacago ay lahayd dowladda Itoobiya oo bangiyada yaalay dad shacab ah, waxaana dhammaantood la sheegay in bangiyada lacagii ay qaateen. Maareeyaha bankiga ganacsiga Itoobiya Abe Zano ayaa sheegay in ka sukow hantida ay boobeen ay sidoo kale burburiyay burbur xoogan u geysteen qalabkii yaalay iyo sidoo kale dukumiintigii bankiga yaalay. Gaboodfalada TPLF ay geysteen ayaa isa soo taraya iyada oo Mareykanku uu sheegay in loo saari doono guddi baaraya gaboodfalada ay Mareykanku ka geystaan waa TPLF ka geystaan gudaha wadanka Itoobiya. TPLF waxaa lagu eedeynayaa markan in xadgudubyo baasan ay ka wadaan gudaha dalka Itoobiya oo ay si sharci darro ah u dhibaateynayaan shacabka iyo dadka ku sugan gudaha wadanka Itoobiya. Maalin ka hor warbixin ay soo saartay hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha bini'aadanimada Human Rights Watch ayaa waxa ay TPLF lagu eedeeyay inay ka dambayso xadgudub iyo xasuuq ka dhacay gudaha qaybo ka mid ah wadanka Itoobiya gaar ahaan dhulka ama xarada. Waxaana la sheegay in wax walba oo halkaasi ka dhacay mas'uuliyadooda dusha loo saaray TPLF oo ay ka dambeeyaan cid walba oo ka dambeysana mas'uuliyadaas ay qaadi doonto sida hadalka loo dhigay. TPLF sidoo kale waxaa lagu eedeeyay in dad nool oo dhulka ama xarada ku nool ay gubeen. Sidoo kale waxaa la sheegay in saameyntooda ilaa iminka ay ka taagan tahay qaybo ka mid ah dhulka Itoobiya oo ay TPLF la sheegayo in burbur xoogan ay u geysteen qaar ka mid ah goobihii dadka ay deganaayeen. Burburka waxaa ka mid ah guryihii shacabku ay lahaayeen, qaybo ka mid ah goobihii lagu ganacsanayay, hantidii iyo baqaradii. Waxay sheegeen dadka maxarada in burburka guud ahaan xafiisyadii maamulka ee magaalada Hague la burburiyay si la mid ah dhulka maxarada. In TPLF ay ka wada gaboodfallo kuwii ugu xumaa ebed oo ay ka geysanayso, taas oo sabab u ah in ay burburiyaan oo ay dhulka dhigaan guryaha, goobaha ganacsiga sidoo kale qaybaha kale. Mareykanka ayaa soo jeediyay eedeymo ka dhana TPLF waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in baaritaan lagu sameeyo. Mareykanka waa walaac xoogan ka muujiyay gaboodfallo xuquuqda aadamiga oo ka dhanka ah oo la sheegay inay ka dhaceen deegaanada maxarada iyo Anfarta. War-saxaafadeed wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ka soo baxa ayaa lagaga hadlay tacadiye iyo burbur TPLF ay ka geysteen deegaanka maxarada iyo Anfarta. Mareykanku waxa uu soo jeediyay in baaritaan la sameeyo, sharcigana la tiigsado ciddii falalkaasi geysatay oo qayb ay ka ahaayeen ciidamada TPLF iyo saraakiishooda. Waa looga digayaa in mar kale ay dhibaato ka kiciyaan qaybo ka mid ah Itoobiya, waxaana dagaaladu xadka ay ka baxeen markii TPLF ay bilaabeen xadgudubka ka dhanka ah xuquuqda aadamiga, taas oo muhiim ah ama loo baahan yahay in lagula xisaabtamo ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee wadanka Mareykanka. Waayahay markan haddii aanu u soo laabano mucaaradka, markan waxa ay ku gurigaleen xilka Rooble kadib tallaabadii ay qaadeen ayaa la leeyahay, waxaana mucaaradku ay rabaan in ay qayb ka noqdaan oo ay boobaan kursiga oo ku fadhiyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa uu kulan la qaatay xubno muhiim ah iyadoo ay hadallo kala duwan soo baxayaan. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke ayaa Sabtidii kulan gaar oo qarsoodi la qaatay madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Sharmaarke oo dhawaan ku soo laabtay Muqdisho ayaa kulamada tashiya la qaatay xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka, wuxuuna la qabtay dhowr shaqo oo gaar ah. Isaga oo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Usmaan Jawaari ayaa aragti hordhac ka keenay habka loo sameyn karo golo qaran haddii la joojin waayo doorashada boobka, taas oo loo qeybiyay xubnaha midowga musharaxiinta si ay dood xoogan u geliyaan. Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke waxa uu kadib kulan gaar la qaatay madaxweyne Farmaajo. Kulankaas oo la sheegay inuu ka yimi dhanka madaxweyne Farmaajo, kamana marna in Cumar Cabdirashiid aaminsanaa in haddii maamuladii doorashada ay wada boobayaan in la raadiyo dariiq kale oo awood uga soo laaban karto siyaasiyiinta la yaqaano ee federaal. Si kale markii loo dhigo habka awoodda iyo loolanka loogu soo boobi karo Farmaajo iyo mucaaradka la yaqaano ayaa noqon karta aragti kale.
kulanka Farmaajo iyo sidoo kale Cumar Cabdirashiid kadib waxaa soo baxay warar xooggan oo sheegaya in mucaaradku ay rabaan in doorashadan boobka la joojiyo awoodna la soo celiyo maamul goboleedyada iyada oo Farmaajona toos u macaamilaan balse dhinaca kale xubno ku dhow xafiiska ra'iisul wasaare Roble waxay qabaan in mucaaradka Farmaajo kala hadleen in xilka ra'iisul wasaaruhu uu mucaaradka siiyo 2 sano oo cusub iyo hanaan doorasho oo maamulada daciifka yihiin laga wada hadlo iyada oo la tirtirayo dhammaan xubnihii ku soo baxay doorashada boobka loona laabanayo ama la soo nooleynayo baarlamaankii 10aad mucaaradka sida muuqata hadda waxaa Farmaajo ugu daran madaxda maamul goboleedyada dalka haddaba markii uu warkan soo baxay kadib waxaa lala xiriiray qaar ka mid ah madaxda mucaaradka si aan uga weydiino wax ka jira inay gorgortan ay ka galeen in miiska ay la tagaan ra'iisul wasaare xubnaha aan la hadalnay waxay sheegeen in maadaama uu Roble awoodi waayay in cabashadooda wax liyo maamuladiina ay diideen shirkii doorashadiina la boobayo ee caddahay ay dareemeen inuu jiro xal kale oo sheegaya in mucaaradka iyo Farmaajo ay wada qabsan karaan hadda mucaaradka ma xaqiijin mana beenin in lagu gorgortamayo madaxa ra'iisul wasaare Roble iyada oo loo laabanayo baarlamaankii 10aad doorashada socotana laga dhigayo waxba kama jiraan xubnaha xafiiska ra'iisul wasaaraha oo iyaguna aan la hadalnay arrinta si weyn ayay ugu walaacsan yihiin marka hore loolanka doorashada iyo midda siyaasaduba waxay u dhaxeeyeen madaxweyne Farmaajo iyo mucaaradka laakiin hadda labadiiba waa laga xoog badiyay meeshiina waxaa qabsaday madaxda maamulada waxa cad in waqtiga dheer kadib hogaankii siyaasadda isbedel qarka u saaran yahay oo awoodii ay aad u jiha kale ama awoodii ay aad jiha kale oo waxba xirinayn waana ragga hormuudka u ah gobolada dalka sidoo qoro ay awoodda ay degdeg ku helaan looga dhigi karo hogaamiyaasha gobolada waa in ay Farmaajo iyo ragga ka soo horjeeda keenaan doodtii hore mid ka duwan ayna leeyihiin dadka siyaasadda ka faalooda qaarkood Cumar Cabdirashiid Cali waxaa la filayaa inuu qaar ka mid ah xubnaha midowga musharaxiinta kala hadlo wixii uu Farmaajo kala soo kulmay balse guuxa ah in dariiq cusub la furo waxa uu wiiqi kara awoodda madax goboleedyada waxaana la sheegay in xitaa Farmaajo uusan diidanayn sida loo furay dariiqaasi mucaaradku in ay isku fahmi karaan sharci ahaanshaha arrintan iyo in la heli karo doorasho kale oo heshiis lagu yahay waa mid u baahan sharaxaad kale oo fahmi dheer u baahan haddii ay caddaato inay mucaaradku qabaan in Roble la bixiyo lana keeno ra'iisul wasaare cusub lagana doodo hanaan doorasho oo ka duwan midkan boobka ah dalku wuxuu geli doonaa xaalad kale oo aan dhamaadkeeda la aqoon waxaa kale oo la hubin in ay madaxda mucaaradku isku raaci karaan in Farmaajo la heshiiyo ra'iisul wasaarahana laga qaato oo ballan la yeesho xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka iyo Roble aad ayay u sii kala fogaadeen maalmihii dambe sababtana waxaa lagu sheegay in ra'iisul wasaaruhu ka cudur daartay in doorashada la joojiyo Roble waxa uu qabaa in doorashadu socoto lana xalliyo cabashada mucaaradka balse taas ma ogola mucaaradku wax walbana waxa ay sheegeen inay iska bedeli karaan siyaasadda Soomaaliya xilligan la joogo taas oo ay ka wadaan in isbedeladu ay imaan karaan joogitaanka Cumar Cabdirashiid ee magaalada Muqdisho ayaa sidoo kale sababi kara in xaaladdu u dhamaato meel aan la filayn maadaama uu labada dhinacba u furan yahay una awoodo in uu wax kala sarifo ama labada dhinac u kala sarifo una kala dabaqaado taas oo ka dhigay wax imaan kara inay noqdaan waxa uu isagu mas'uul ka yahay guudaan saxabiyaal halka aynu kusoo gabagabeynayaa barnaamij wareedkan tan iyo qaybtiisa kale intaynu ku kulmi doono sida ay nabadgelyo